waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha haddee jidka dheer soo maray soo rafaaday intaas maaragtay safarka ku soo jiray laakiin ay qalbiga ku riixanaya inay guryahoodii u socdeen iyo deegaankoodii iyo walaalihii ka soo horreeyey oo sugayey oo halkaas u taagan marka mahad baan u celinayaa waxaan mahad labaad u celinayaa insha allahu tacaalaa guddiga dib u heshiisiinta oo goor walba u diyaarsan inay maaragtay dadka oo martigelintooda iyo soo dhowayntooda iyo diyaarintooda goor walba u taagan hadda wixii loo idmanayna ah waxaana la yidhi waxaa mudan in loo mahad celiyo ninkii waajibkiisa gutay ninaan waajibkiisa gudan in loo mahad celiyoba ma astaahilo marka waxaan leeyahay walaalayaal soo dhowaada dhuusamareeb oo nabada oo gacanta dowladda federaalka ku jirta oo aad maaragtay culummadii maamulka haysay oo deegaankan ka tali jirtay ay adinkoo maqlaya si buuxda ugu wareejiyeen dowladda federaalka amnigii iyo maamulkii magaalada haddana insha allahu tacaala ayagu gacanta ku haya annaguna haddaanu nahay bahdii deegaanka joogtay aan dhinac ayaga annaguna ku wareejinnay sidaa daraaddeed waxaan rabaa culummadii heshiiskaa aqbashay dowladdana ku wareejisay maamulkana inaan u mahad celinno dowladdii hanatay inay maamulka sugtana aan u mahad celinno wafdiyada iyo dadka idinsoo hor taagan oo walaalihiinana ay mudan yihiin ayagana in loo mahad celiyo soo dhowaada waxaan u mahad celinayaa prime ministerka hawsha uu ka qabtay galmudug waan wada soconnay wiig baan ka soo horreynay sidiina uma annaan laaban prime ministerka wuxuu leeyahay bilo sharaf goonni ah madaxweynahana sidaasoo kale maxaa yeelay dheh maanta waxaad muuqata galmudug inay isku timid isgarab taagan tahay isku yimaadeen ee joogaan caasimaddoodii waxaan maanta soo dhowaynayaa anagoo xildhibaanadoodii ah odayaashayadii dhaqanka oo sida sharafta leh u yimid magaaladoodii caasimaddoodii kana yimid shirkii hobyo intaasna u fadhiyey odayaashii kalena ay imaan doonaan insha allah dhammaantood wax cuduraa ma jiro dhismaha galmudug dhammaanteen ayayna qusaysaa inta maqanna waxaan leeyahay walaalayaalow waxa uga horeeya in la helo waa maamul haddaan la helin wax noo hagaagaya ma jirto aan dekadeennii maalin dhoweed la saxiixay oo ilaahay mahaddiis aan ku helnay inaan dhisanno aan ka wada shaqayno reer galmudugow galmudug oo gacanta ishaysata oo aan cidna xoogin oo cidna aysan dibindaabiyeynin oo qoys walba rabitaankooda ay ku yimaadaan ayaan filaynaa in halkan ka dhacdo waxaan ugaaska iyo yuusuf la wadaagayaa soo dhoweyntii deegaanka ragga wakiilka ka ahaa weeye waxaan aad ugu faraxsannahay beeshaan maanta socota oo annagu guddi ahaan runtii aan soo dhowayntooda qiimo gaara noo leedahay soo dhoweyntiinna sababtoo ah annaga runtii guddi ahaan gaalkacyo markii aan tagnay beesha tanu waxay noo qadariyeen oo noo soo dhoweeyeen si aanaan marnaba hilmaami karin runtii walaalayaal waan ku faraxsannahay maanta inaad noo timaadaan imaanshihiinnu wuxuu la mid yahay shirkii daba heshiisiinta oo noo furmay shirkii daba heshiisiinta oo guulaystay shirkii daba heshiisiinta oo aqbalay inta aad ka imaanayseen 25 aad qabsateen inaan idin sugno taasna waxaa keentay muhiimadda aad noo lahaydeen baa keentay sida hadda qolooyinka naga maqana aan haddii alla idma u sugayna maanta iyo berri intaa kadib annaga guddi ahaan runtii waxaad ka garan kartaan qiimaha aad noo leedihiin inaannu idin dulqaadanay inaannu idin sugnay ergooyinka qaarkood oo kaleeto halkan waxay joogeen ilaa 11 casho maanta u ah ilaa dowladda federaalka maamulka halkan iyo odayaasha iyo dhaqanka guddiga qiimaha idin hayaan bay ahayd inaannu idin sugno waxaan idin mahad celinaynaa soo dhoweynta aan soo dhoweyseen si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa guddiga qabanqaabada dib heshiisiinta oo hawshaan waqti dheer hawl geliyey waqti badan geliyey oo aqoontooda ugu daray oo maanta heerkan soo gaarsiiyey dib heshiisiintii iyo qabanqaabadeedii sidoo kale waxaan mahad ballaaran halkan uga celinayaa dowladda federaalka oo horkacayay ra'iisul wasaaraha qaranka mudane xasan cali khayre oo asaguna muddo 50 cisho ah
juhdi geliye galmudug inay wax noqoto oo hagaagto oo dib u dhisanto isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyo inta la shaqaysay wasiiradiisaba sidoo kale culamaa udiinka waa dhegaysanaynay inay si buuxda ugu wareejiyeen dowladda federaalka ah iyo guddiga qabanqaabada amniga magaalada oo ogolaadeen inay noqoto magaalo loo dhan yahay ayaguna aad iyo aad u mahadsan yihiin intaa bacdigeed walaalayaal annaga waxaan ka nimid safar dheer baan ka nimid waxaad la socotaan muddo 25 cisho ah 45 cisho ah ayaan hobyo fadhinay shir beelaha galmudug beelo ka mid ah ayaa halkaa lagu hayay shirkaasi guud ahaan wuxuu marahayaa meel fiican ayaa la dhigay meel fiican ayaa la dhigay wanaagiisu bahdii gaarka ahayd oo iska lahayd iyo bahweynta guud oo galmudugna iyo Soomaaliba insha Allah goor uu soo gaaro ayaan rajaynaynaa wanaagiisu sidoo kale waxaan u nimid annagu iyadoo walaalo badan oo kale oo kamida beesha habargudul halka ku shiraysan ay iman doonaan mas'uuliyiintoodii iyo salaadiintoodii ugaasisa aan filayna mar dhow inay yimaadaan annaguna aan ka soo hormarnay kuwa kalena naga soo horeeyeen dhammaantii waxaan u soconnaa gogasha dib u heshiisiinta galmudug oo beelaha lagu heshiisiinayo dabadeedna la rabo in lagu yagleelo maamulkii galmudug haddii alla yidhaahdo intaasaan u nimid sida aan ugu soo dhaweysaan baan raalli ka nahay walaalayaal waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano dib u heshiisiinta dib u dhiska haddii ilaahay idinkeeda leeyahay dowladda haddii ilaahay idinkeeda leeyahay qaybta aan ku leenahay inaan ka qaadano ayaan u nimid insha allahu ilaahay idinkiis waxaan u imaanaya hordhac baan nahay dadka badan baa u imaanaya haddii alla idmo waxaan soo dhawaynaynaa ilaahay waa mahad leh u mahad celinaynaa dadka walaalaha ah oo qalbiga furan iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay lagu soo dhaweeyey dadaalka iyo dib u heshiisiinta dhammaan waa salaamaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad salaamaynaa